Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo la odhan jiray Maalik kaasoo la ildarnaa warwar iyo cidhiidhi dhanka nolosha ah. Wuxuuna shaqayn jiray saacado badan, wuxuu ku maqnaan jiray shaqada waqti dheer oo uusan fursad u helin naftiisa iyo kuwa uu jecel yahay. Wuxuu had iyo jeer dareemi jiray daal iyo tacab fara badan, mana uusan ahayn mid yaqaana si uu isaga saaro dareenkan xun. Maalin isagoo beerta nasashada dhex lugaynaya ayaa wuxuu arkay oday waayeel ah oo ku fadhiya kursi alwaax ka samaysan oo geed weyn hoostiis fadhiya. Odaygii ayaa si deggan u dhoolla caddeeyey, wejigiisuna waa dhalaalayay. Maalig wuxuu jeclaystay inuu la fadhiisto odayga, wuu ku soo dhowaaday wuuna salaamay. Maalik wuxuu weydiiyey odaygii sideed ku heshay ood haddana ku ilaashatay deganaanshiyaha iyo xasilloonida noocan ah marka loo eego waxa cadaadis iyo culaysyo aan wajahayna nolosheenna. Ninkii odayga ahaa ayaa wuxuu ku jawaabay, waxaan baranay xasilloonida bannaanka kama imaato laakiin gudaha yaga ayay ka imaataa. Waxaan gacanta ku haynaa fikradaha iyo dareenka yaga, waxaan nahay kuwo cadaadiska u beddeli kara fursado si ay u koraan una horumaraan. Wuxuu weydiiyey Maalik sida aan taas u samayn karo. Odaygii ayaa ku jawaabay, siyaabo badan ayaa jira kuwaasoo kaa caawinaya inaad gaarto raaxada nafsiga ah. Qodobka koowaad waa salaada iyo cibaadada. Salaada iyo cibaadadu waa kuwo ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu gaadho raaxada nafsiga ah. Waxay inoo dhoweynayaan Allah subxaanahu wa tacaala, waxayna ina dareensiinayaan badbaado iyo xasillooni. Qodobka labaad waa inaad waqti u qoondayso si aad u fikirto oo aad diiradda u saarto waxyaabaha kuu qabsoomay. Adigoo meel deggan oo bilaa buuqa tegaya waxay kaa caawinaysaa inaad nadiifiso maskaxdaada oo aad ka takhalusto fikradaha negatifka ah. Qodobka saddexaad, qor liiska waxyaabaha aad ku fiican tahay nolosha. Hadday tahay waxyaabaha maadiga ah ama macnawiga ah, tani waxay kaa caawinaysaa inaad diiradda saarto waxyaabaha aad ku fiican tahay nolosha. Qodobka afraad, caawinta dadka kale. Caawinta kuwa kale waxay dadka kale siinaysaa dareen cajiib ah iyo qanacsanaan iyo farxad, midaas oo adiga dib kuugu soo laaban doonta. Ha filanin inaad faraxsanaato mar walba, sababtoo ah nolosha waxaa ka buuxa caqabado iyo loolanno. Laakiin ku dhaqan iyo dulqaad badan kadib awood waxaad u yeelan doontaa inaad hesho raaxo nafsi ah oo aad ku noolaato nolol caafimaad qabta. Gabagabadii xasuusnow in raaxada nafsiga ahi ay tahay mas'uuliyadaada, waa inaadan sugin qofna inuu kaa farxiyo, bilow inaad naftaada iyo noloshaada u beddesho mid wanaagsan. Haddii aad ka heshay sheekadan, ha ilaawin inaad nagu taageerto like, naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho sheekooyinkeenna oo dhan insha Allah.